magacaygu waa Xamse Saxardiid Ciise. Ani su'aasheedu waxa weeyaan xagga tamarta. Waxa weeyaan dawladda waxa loogu yaqaanaa inay xagga tamarta ay gacanta ku hayso waayo dawladaha aynu jaarka nahay korontada leedhka oo keliya ayay inta badan qaabilaan. maanta dalkeenna waxa gacanta ku haya oo aynu odhan karnaa wasaaradaha waxaan u jeedaa qaybta tamarta oo leedhka ah waxa gacanta ku haya shirkadda bareefada oo ay ka mid tahay shirkadda Sunpower. waxa weeye maanta haddii caawa magaalada Hargeysa uu leedhku go'o dhammaan way madoobaanaysaa boqolkiiba 95 waxaynu odhan karnaa waxa gacanta ku haya dawladda bareefada. marka ma odhan karnaa dawladdu ma awoodi kartaa inay gacanta ku qabato leedhka intayna horta bal wax kale gaadhin maadaama iyadoo loo doortay inay dalkan dawladdu ahaato waqti go'an ama inay wax ka qaadato leedhka dawladdu maxaa uga qorshaysan taana horta sharciyan dastuurkeenu qaadanay waa free market dawladdu waxay u deysay wixii waddanku ku shaqaynayay ee way xoreysay marka monopol ma aha dawladaha hanti wadaaga la wareega cuntada oo la wareega leedhko la wareega warshado anigu waa yareertiin waxa soo maray iyadoo wax walba dawladdu gacanta ku hayso lala yahayba oo xitaa leedhka la yahay Hargeysa maalin ay maanta ka leedh badan tahay weligii ma arag maxaa dawladdii xoogga weeyay Maxamed Saabir markay joogtay dhakhtarka Hargeysa waxaan garanayaa been idin sheegmay iyadoo markuu qofku umulayo gaari loo shigo gaari indhiisa loo shido dawladdaana warshad haysay horta markaa warshad ma aha wanaagu iyo horumarku inay wakaalad haysay inay dawlad hayso ma aha waa sida loo maamulo waxaanu qaadanay free market kaana adduunyada in badan baa hore ugu martay shirkadaheenuna mar walba adduunyada nuqsaan baa jirta way jiraan dhibaatooyin mar walbana way jirayaan laakiinse tallaabo weyn oo hore qaadeen maanta Hargeysa haddaad buurtaa fuusho waxaad moodaa New York meel walba leedh baa ka baxaya Hargeysa 91 marka soo noqday guri kaliya leedh ka baxay ma jirin dawladdu ma sameeyeen iyaga sameeyay kan imka xitaa waxa weeye shirkadahan way dadaaleen aad bay u dadaaleen sharciguna uu ogol yahay dastuurkana uu ogol in leedh sameystaan ka baxay mushtariyeen sida hudheelka loogu ogoliyay waxaanu xaq ugu leenahay control iyo wixii saa'ida iyo wixii dhiba iyo wixii macaash hunguriya ee saaranayaan dadku qaadeen in lagu kontrolo taana commission baa loo sameeyay price-ka laymanka dawladdu way ka warhaysaa way ka shaqaynaysaa laakiin free market baynu ku shaqaynaa wax wanaagsanna way qabteen wax badan oo u dhimanina wuu jiraa marka uma arko in yani meel baqashada intaa leeg lahay taa loo leeyahay shirkadaha laga qaado waxaan sameynayaan